حاجة رمضان dad markii la adimo timirtii biyaha ay ku dhuftaan kadib sigaar ka dabageeyay iyagoo leh xaraarada iska jabinayna marka dadkaas arkooda wuxuu noqonaya bismillah ordo sibay dhaantaa inayna ku afurin hadday ku afuraan baa darnaan lahayd laakiin haddayba intay xalaal ku afureen dib uga dhigeen kuwa kale dhaamaan ama waqtiga ha noqoto ama waqtiga la noqoto sigaarku waa xaraan sigaarku waa xaraan shariicada marka la fiiriyo umumaadkeeda iyo maqaasideeda iyo marka la fiiriyo sigaarku wuxuu ku jira waxyaalaha xaraamta laana ruuxa caafimaadkiisii muxuu ahaayay jidhkiisii yuu dhibaya oo dhib u geysanaya xoolihiisii buu gubaya ma banaana marka sharcan mar hadduusan bannaanayn ruuxa intuu afuray sigaar cabay wuxuu la mid yahay ruux afuray oo xaraan cunay soonkiisii waa cibaado iskeed ah oo sigaarkani hadda ma jabinayo laana cibaadadii way xidhantay maalinkii buu soomanaa maalinkii waa dhammaaday cibaadadaasi waa xidhantay sooma laakiin sigaarkan uu cabay waa dambi iskii u madax bannaan su-aal baa marka imaanaysa laakiinoo cibaadaadku ruuxa samaynaya waa inay xumaanta ka reebaan sooma inna salaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar soonka markuu ilaahay ka hadlayna wuxuu yidhi kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum waxaa la yidhi lacallakum tattaquun soonku waa inuu ku dhexalsiiyo is-ilaalin aad xaaraanta iska ilaaliso soo maa sidaas daraaddeed su-aal baa imaanayso ruuxa maantoo dhanna soomanaa markuu saa u afurayna xaaraan ka bilaabay soonkiisii ayaan ficlan sidii la rabay u dhicin soonkiisii sidii la rabay waa buray la dhihi maayo laakiin soonkiisu sidii la rabay hadduu dhici lahaa wuu xakamayn lahaa sigaarkana wuu ka goyn lahaa xumaantana wuu ka reebi lahaa waxbaa marka meeshaasi si ka ah laakiin soonkii waa buray la dhihi maayo qalleena la dhihi maayo cibaadadaasi waa cibaado gooni ah tanna waa dembi iskiisa u madax bannaan wallahu aclam